السلام عليكم أصحابتا ميل كasta adduunka joogtaan waa maalin kale iyo muuqaal kale iyo galab kale hadda waxaan joognaa xaafadaha ugu quruxda badan leh sidoo kalena loogu jecel yahay magaalada Hargeysa maanta waxaynu soo arki doonaa mid ka mid ah fooqyada ugu dhaadheer ee ay magaaladan yeelatay welina waxa weeyaan dhismihiisa uu socdo inkastoo uu gabagaba yahay marka ku soo dhawaada muuqaalkii sanadka waxay naga horeeya waa dhalinyaro hadda ka soo rooxay iskuulkii waa secondary-ga ayay dhigtaan maadaama xiran yihiin garan cad iyo surwaal madow goobtan hadda aan ku soconna waa goobaha sidoo kale ah view-ga magaalada waana goobta laga daawado magaalada quruxdeeda maasha allah yaryarkan waa yaryarkii deganaa xaafadan marka waxaynu isla soo arki doonaa maanta bal dhismaha ugu dheer halka uu marayo sidoo kale waxaynu soo daawan doonaa magaalada Hargeysa inagoo hadda marayna qaybteedii koonfureed halka aynu daawan doonana waa waqooyiga magaalada sidoo kale halkan waxaad ku arkaysaa inta badan inay dadiyo dalxiisayaal yimaadaan maadaama magaalada qaybaheega kala duwan ay ka daawanayaan halkan dabaqii ugu dheeraa magaalada wax yar ayaynu u jirnaa sidoo kale asxaabta waxaan rabaa inaan idinla wadaago halkan haddaan maraya waa goobo bannaan balse noqon doonta waqti dhow goob la degan yahay oo laga dhisi doono guryo kala duwan amba goobo business maadaama dhismaha iyo fooqa ugu dheer magaalada uu halkan ku yaallo lagana dhisay sidoo kale guryaha iyo jagooyinka halkan qiimahoodu aad ayuu u qaaliyoobay intii dhismahan la waday inta ugu badan magaalada waxaad arkaysaa iyadoo siyaabo kala duwan loo soo duubayo goobtan dad iyaguna ay waqti ku qaataan marka inaguna maanta waxaynu waqti ku qaadanaynaa bal view-ga magaalada iyo dabaqa ugu dheer dabaqa ugu dheer waa kan hadda aynu ag marayno sidoo kale halkan waa goobo iyaguna la wada deeray oo loogu talagalay in hadhow dhismo laga dhiso maadaama waxay u dhow yihiin dabaqa ugu dheer dabaqay ugu dheer magaaladana waa kan dhinacayga midig inaga xiga dhismo hadda halkan ayuu marayaa waxa socota nashqadayntii iyo ranjiyeyntii sidoo kale gudahana waxaa ku socota qurxintii iyo decorationkii marka waxaynu rabnaa in bal haynu view-ga ugu quruxda badan leh magaalada haynu soo daawanno dhammaanteen ma jeclaan lahayd inaad halkan oo kale timaado waqtina aad ku qaadato halka aad naga daawanayso waxaad nagula wadaagi kartaa commentiga magaalada aad joogto ama dalka aad joogto sidoo kale magacaadana waad ku dari kartaa magaaladii Hargeysa oo dhisantay sidoo kale yeelatay dabaqyo dhaadheer
oo la tartamaya kuwa adduunka ayaa halkanna idinka muuqda. Ku soo dhawaada view-ga magaalada Hargeysa. Magaaladii Hargeysa wataa. Hadda halkan waxaa lagu wareejiyay laftarkeega deyr. Maalmihii hore halkan deyrkan may lahayn, balse magaalada ayaa si qurux badan u arkaysa. Haddii aan xaggan idinku qabto, waa dhismaha ugu dheer ee magaalada ay yeelatay. Fooquna waa kan, waxa uu ka kooban yahay haddaynu tirino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. inta hoosena ma arkaynaba. Marka maasha Allah dhismihiina waa ka sidoo kale waxa uu leeyahay deyr aad iyo aad u dheer. Asxaab ka timid hadda iskuulkii ayaa iyaguna waqti ku qaadanaya jawiga magaalada Hargeysa. cadceeddii ayaa sii dhacaysa. Koorsheegtuna waxa weeyaan 5:15. waxaan rajaynayaa inaad si wanaagsan u wada arkaysaan muuqaalka magaalada Hargeysa marka laga joogo koonfurta. sidoo kale haddii aad u baahan tahay inaad halkan oo kala timaado, waxa aad ku iman kartaa gaarigaaga amba gawaadhida magaalada loo ka haysto ee taksiga amba loo yaqaano dhaweeye. waxaa kuu dheer inaad soo raaci karto basaska xaafadda tegaya masallaha amba airportka. waxa aad kaga degi kartaa halka ugu dhow ee ku beegan fooqa magaalada ugu dheer. nagula raaxaysta cadceeddhaca magaalada Hargeysa. sidoo kale haddii aad jeceshahay in goobo kale aan halkan idinkula wadaagno, magacyada halka hoose noogu soo sheega amba xaafadda aad ka jeceshahay amba xaafadda aad ku riyoonayso amba aad taa jeclaan lahayd inaad degto. halkanna waa dhinac kale oo magaalada Hargeysa laga daawado marka view-ga la rabo in si fiican loo arko. waxaa jira dadyow fara badan oo ay ugu dambeysay muddo amba haynahno sanado fara badan hadda magaaladii sidan ay u eg tahay. halkaa kale waxay naga soo qabanaysaa buur kale oo la siman buurtan. iyaduna waxa ay tahay goobaha ugu quruxda badan leh marka la rabo in view-ga magaalada si wanaagsan loo daawado. halkanina waa jago kale oo cusub oo aseesay looguna talagalay in iyadana guri laga dhiso, maadaama halkan ay noqotay goob aad iyo aad u ah istaraatiijig amba muhiim ah. sidoo kale qiimihii awal la siin jiray aad ayuu u qaaliyoobay. waxaana suurtagalay inaanad helinba. haddii aad heshana aad ku helayso qiimo qaaliya. magaalada waxaa muddooyinkii u dambeeyey ka da'aya roobab aad u waaweyn. sida aad arkaysaan dhirta akhtar ayay isku beddeshay, walow aanay daaq fara badan ka soo bixin halkan maadaama oo ay tahay buur laf ah.
haddana waxaad arkaysaa in geedihii ay ubaxyo bixiyeen sida ubaxan oo kale oo loo yaqaano gabaldaye. Kan gabaldayuhu dhismihii ugu dheeraana waa kaa. Muuqaalkeenna maanta halkan ayaynu kusoo gabagabeynaynaa. Waxaan idin leenahay sidaa iyo is arag dambo xiiso badan.